xarunta degmada deegaanka Gubadley oo runtii ah deegaan aad u horumarsan boqolkiiba boqol horumarkaas oo ku yimiday isxilqaan bulshada deegaanka runtii waa meel ku dayasho mudan aan ku aragnay waxyaabo aad iyo aad noo soo jiita hadday ahaa lahayeen goobaha bulshada loo adeego sida caafimaadka saldhig ciidan xarunta degmada hadda hor taagannahay iyo horumar kale oo tiro badan oo ganacsiyo ka socdaan oo intaasuna ay ku yimideen inay deegaankaanu ay maxaan ku yiraahdaa noqdaan deegaan isku tashta oo aad u qurux badan anta jimceysiga ahay wuxuu qayb ka ahay in aan aragno maaragtay sida reer Gubadley ay uga go'an tahay inay maamul cagahooda ku istaagsan oo adeeg asaasiga ee bulshada fidinaya amniga isku xirka isdhaxgalka arrimahaas oo dhan ay qayb ka ahayn maanta bal deegaanka nabadda anagana u soo booqasho tagno indhahayna waxaan ku aragnay wax qurux badan indhahayna waxaan ku aragnay ummad aayaheeda ka tashanaysa ummad rabta inay la jaan qaado caasimadda ay dhinac kaga nool yihiin duruufo kasta oo jiro laakiin waxaad dareemaysaa dad niyadsan dad raba inay hormaraan inay adeegii asaasiga helaan waa aragnay goobo inay dadku maaragtay goobo beeraha oo isku dayayaan inay noqdaan goobaha loo dalxiis tago waxaan ku aragnay bilaaw fiican oo wanaagsan waxaan ku dhiirigelinaynaa maadaama magaalada ay caburan tahay dadweynuhuna ay badan yihiin deegaankan waxaan rabnaa dadka deegaanka iyo ganacsatada inay goobo loo dalxiis yimaado diran noo soo dhaweeyay martiqaad aad u qurux badan noo sameeyay na tusay horumarka deegaankan Gubadley oo annaga marka hore sidaan aaminsaneen iyo sida aan maanta aragnay ay laba kale ahayd waa ku bogaadinaa horumarkaas maamulka degmada iyo dadka deegaanka dhamaantood waa ku bogaadinayaa waxaan leeyahay halkaas ka sii wada dadku inay gacan saddexaad iyo dawlad sugaan markasta waxa uga muhiimsan ama uga waxtar badan inay ayaga isku tashtaan marka waxaan ku bogaadinayaa bilowga isku tashiga ah waxaan ku sii dhiirigelinayaa inay sidaas u sii wadaan oo isku tashtaan horumarkaas kala duwan oo aan degmada deegaanka aan ku soo aragnay in sidaas loo sii laba jibaaro annaga ka maamul gobol ahaan sida ay tahay hadda siyaasadda gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Umar Filish siyaasadiisu ah in maamulka la daadijiyo oo la ballaariyo ka agaasimo qorsheyn ahaan waxaan halkan ka cadeynayaa in qorshayaasha sanadka cusubna ay noogu jiri doonto in deegaankan Gubadley waxyaabo badan oo hadda u baahan yahay laga qabto oo hadda aan indhahayna ku soo arkayna qaarkood deegaankan Gubadley waa deegaan aad u ballaaran horumarkiisana mar ka dambayso oo ku sii siqaayo meel fiican ayuu marayaa runtii waa laga shaqeeyay dadka deegaanka oo isku duuban ayaa ka shaqeeyay waxaa loo baahan yahay horumarka ay dadkan ay qabsadeen in la muujiyo lana gaarsiiyo meel walba waxyaabaha ka dhiman oo tabarta ay u diidana in lala soo gaaro marka sidaas awgeed waxaan leeyahay marka Gubadley waa deegaan baaxadiisa ay badan tahay jaanis far badan ay ka furan yihiin horumar far badan sameeyay runtii waxaan leeyahay bulshada iyo dadka ku dhaqan deegaankan ku dayasho ayay mudan yihiin waxa sababay horumarkan iyo meelaha danta guud lagu dhisay isxilqaanka oo ay kamid tahay xarunta degmada iyo isbitaalkii iyo saldhigii booliska MCAjo oo lagu dhisay isxilqaan runtii bulshadaas waxaan aaminsanahay inay bulshada isku tashatay ay tahay ay u baahan tahay kaliya in la garab qabto oo magaceeda iyo miisaaniyadda ay ku leedahay dawladda in kor loola qaado sababtoo ah bilow wanaagsan iyo talaab fiican ay qaadeen waxaan leeyahay marka anigoo ku hadlayo magaca ummadda ku dhaqan deegaankan waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir kaalaya imaada arka indhiina ku arka horumarka ka jiro deegaanka Gubadley oo aad ku ballaaran oo mar ka dambayso meel fiican marayo waxaan leenahay in ay maamulka ay indhahooda ay ku arkaan korna ay u qaadaan ay gaarsiiyaan ummadan hadafkooda iyo waxa qalbigooda ku jira inay gaarsiiyaan oo ina tahay muhiimadooda ugu weyn inay mar maqlaan degmada Gubadley waxay hantidooda iyo qarashkooda iyo juhdigooda iyo waqtigooda ay ugu bixinayaan waxay tahay inay hal mar kaliya ay maqlaan degmada Gubadley waxaan leeyahay sharuudihii looga baahnaa degmana ay soo buuxiyeen inta badan marka waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu fariintan uu qaado gaarsiiyana dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo